بسم الله الرحمن الرحيم waad u jeedaan waxaan joognaa xaruntii garoonkii Jenyo digniin 3 cashan siinay inay dadku baneeyaan si halkan loogu soo celiyo dantii guud ee garoonkii Jenyo oo ahaan jiray waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka degmada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga oo runtii suurtageliyay inaan maanta goobta dhismihii laga dumiyo si ay caruurta iyo dhalinyaradaba ugu soo noqoto garoonkooda caadiga ah annaga ballanqaadnay annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhulalka dawladda ee danta guud waxa kaliya loo isticmaali karaa waa dan guud ummadda ka wada dhaxaysa ummadda iskale annagana ka maamul gobol Banaadir ahaan waxa naga go'an in dhammaan dhulalkaas dawladda ee danta guud ay gacantii danta guud ku soo noqoto sidoo kale waxaan hore digniin u siinay jardiinooyinka iyo goobihii beeraha ahaa oo ummaddu ay wada isticmaali jirtay ayagana waxaan leenahay digniintii kama dambaysteed waa idin soo soconnaa cid allaale ciddii awaamirtaas ka dhaga adeegtana sidaan oo kale ayaa muxuu ahaa goobahaas dib loogu soo celin doonaa gacantii danta guud annaga waxaan naloo dhiibtay waxay tahay ammaanadana waxa iska leh shacabka inaan noqono maamulkoodii u adeegnana waa waxaan meesha u joogno marka cid kasta oo isdhehayso laguma arkayana waa kuu soo soconnaa cid kasta oo dan guud haysana waxaan rajaynaynaa inay si sharaf leh gacanta dawladda ugu soo wareejiyaan oo annagana waxaan ku dadaali doonaa inaan intii karaankeenna ah magaaladan inay ku soo noqoto sidii barisamaadkii ahaan jirtay oo la helo goobo badan oo bulshada ka wada dhaxeeya si quruxdii iyo bilicdii magaalada u soo noqoto waa mahadsantiin